Hello, السلام عليكم. Hello, السلام عليكم. waxaan filayaa in ay maqlaysaan. Waadi salaamaya. Magacaygu waa Aamina Muuse Weheliye Cadow. Waxaan ahay gabar la dhalatay ama uu adeerkeed dhalay Fawziya Faarax Weheliye Cadow Faarax Sindiko oo ah walaashay adeerkay dhalay. Aabahay adeerkayba Allah u naxariisto waa dhinteen. Adeerkay caruur fara badan ayuu dhalay. Ilaahay waa dhaqay. waxaan rabaa maqnaashaheeda aniga oon ka shifaynin sirta sirdoonka ee hadda socota in aan wax yar ka iraahdo maadaama dad fara badan arrintan ay danaynayaan dad fara badanna ay ka xanuunsadeen Fawziyana aynan ahayn qof haysa xil amaba mas'uul dawladeed aanay ahayn waxaan isku dayayaa si kasta oo aan u murugaysanahay inaan sida ugu fiican inaan u hadlo marka ugu horeysa dadka Fawziya aan aqoonin waxaan rabaa ama aan la socon oo hadda leela qabsaday waxaan ku wargelinayaa Fawziya Faarax Sindiko ama Fawziya Faarax Weheliye waxa waaye magaceeda runta ah walaashay ay ku dhalatay markii ay dhalatana loo bixiyay hase ahaatee alias badan ama banaanaysyo badan ay isticmaalaysay oo ay kamid tahay dhiimo oo ay kamid tahay fiican oo ay kamid tahay iimaan marka ugu dambeeyay waxay isticmaalaysay iimaan Cadow oo ingiriisi u qoran 12 maalmood ayay Fawziya wariya wacaal ugu dambeysay ka hor 12 maalmood ka hor hase ahaatee aniga maadaama gabar walaashooda la dhalata ah meel ka noolna aan ku noolahay meel ka fogna aan ku noolahay oo aan isku meel ku noolayn waxa anigu aan ogaaday oo aan ka war helay arrintan jiritaankeeda xalay saqday dhexe 1:20 mir ama 7 saac iyo 20 daqiiqadood qofka soo yaqaano oo ah subaxii AM ka maaragtay aroortii dhinaca saacadu ay maalinta kale u dhalatay xilligaas ka warhelida waxaan ku war helay wiil baa iga soo wacay xamar aan isgaranayno qaraabadeennana ah ilaa dadku waa qaraabo iyo ehel ayaa soo wacay oo ii sheegay arrintan in ay u sheegeen qaar qoyskeeda ka mid ah anigu marka maba ogeynba wixii xala ka horreey xala markaa ogaaday ka bacda ayaan bilaabay inaan wax qoro ama hadlo Fawziya saa idin sheegaba adeerkay dhalay dadka aan garanaynin warbixin yar hadaan ka siiyo Fawziya waxay ka mid tahay 2 bahood oo adeerkay dhalay bahal ka mid ah waaye oo hooyadeed 3 caruur ay adeerkay u dhashay laakiin ayada ayaa ka nool oo ka hartay saas darteed bahdaas ay kaliya tahay caruurta kale oo adeerkay dhalay oo wiilal iyo gabdhaana waa isku bah Fawziya xamar waxay tagtay 3 sano ka hor arrimo dhinaca qoys iyo dhaxal la xiriira daraadeed oo dadka intooda badanba ay og yihiin halkaas aan kaga baxaya Fawziya waxay ahayd gabar la shaqeysa NGO wadani ah oo dhowr NGO ah oo meelo kala duwan ka shaqeeya sida gobolka Bay iyo gobolada kale ee Soomaaliya dhanka hooyada Fawziya waxaa kala dhashay 2 gabdhood oo la kala yiraahdo Shukri iyo Xamdi Fawziya ma filaayo inay shaqada NGO-ga ay ka shaqeynayso ay ahayd shaqo joogto ah oo aan dhamaanayn laakiin waxay ahayd shaqo la xiriirta projectyo ama mashaariic Fawziya normally dadka yaqaan waxay ahayd gabar u ololeysa xuquuqda caruurta gaar ahaan gabdhaha yar yar xuquuqda dumarka iyo dhammaan dulmanayaasha oo ay ku jiraan rag iyo dumar iyo wiilalba
fawziya waxay Soomaaliya ku guursatay nin dumaashigeen ah hadda oo aniga magaciisa oo la soo gaabay aan u aqaano sanka. xala markaan ka war helay dhowr meelood ayaa wacay dad ehel ayaan wacay oo magaalada Muqdisho jooga waxaan wacay dad dawladda Soomaaliya ku jira sidoo kale waxaan ku sheer gareeyay akhbaarteeda inay gabadha naga maqan tahay bogayga Twitterka iyo Facebooka labadaba. bogay Twitterka laba post saddex post aan ku qoray oo laba Soomaali tahay midna English yahay kii Ingiriisiga ahaa waxaa loo sheer gareeyay amaba lala wadaagay safaaradda Mareykanku ay ku leedahay Nairobi. safaaradiina saaka waa soo wacday waa ila soo xiriirtay anigu waxaan ahay qof meel dheer ka joogto walaashay laakiin intii aan ogaa waa u sheegay maadaama ay ahayd American citizen ama ay haysatay passport iyo dhalasho Mareykan iyagana waa ku maqan yihiin. saraakiil sare oo dawladda ka tirsan ayaa iyagana qaarna anigu aan la xiriiray qaarna iyagu ila soo xiriireen oo iyagana ku maqan. fawziya waa gabar dhalinyaro ah oo firfircoon Facebookna ku isticmaasha iimaan cadow waadna jeegarayn kartaan Facebookeeda inta uu furan yahay. fawziya waxa ugu dambeysay wax ay qortay oo social media ku isticmaashay 27 Febraayo saacadu markay ahayd 9:06 ama 9:06 daqiiqadood oo saacad xamar ah oo Muqdisho ah xilli fiid ah oo haday guri joogtana koleyba dad la joogay. wixii xilliga ka dambeeyay fawziya lama arag hase ahaatee isla maalinta oo 27 Febraayo kowdii iyo badhkii markii ay ahayd saacada Muqdisho ayay waxay dadka ka ballan qaaday oo ay dadka ku xiran ayada Facebookeeda ka ballan qaaday inay live soo gali doonto hase ahaatee live-kaasi muusan suurta galin oo waa baaqday ma aanay soo galin. marka wixii ka dambeeyay waxay soo qortay isla habeenkaas aan idin sheegayo 9:06 warbixin dhiilaysan oo dhiila wadata warbixintaas oo ka hadlaysa in 3 nin ay banaanka u taagan yihiin iyo hadalkii ay isriixeen waxaad ka akhrin kartaan fawziya bogeeda. fawziya warbixinteedii ayaa isku dayaya marka inaan dib u helo waxay la sugaa warbixintii ugu dambeeyay ay fawziya soo qortay. telefoonkan iska damiyo isdaaraya intaan wixii ka dambeeyo oo warbixinay waxa waaye inaan intuu telefoonka isdaarayo waxaan rabaa inaan idin sheego fawziya waxay ku nooleed gobolka Tennessee ee magaalada Nashville ee dalka Mareykanka waxayna la nooleed hooyadeed oo magaceedu yahay Shamsi Yuusuf. intaas waa axwaasha kore ee fawziya ayada oo luuqna ku leexan geedna ka boodin dhagaxna ka talaabsan. waxaana loogu talagalay dadka aan fawziya garanaynin hadda ama aan xaalkeeda aad ula socon. waxaad ka codsanaa inaad sheer garaysaan muuqaalkeyga iska sheer gareeyo inta sugu caawiya. okay warbixintii ugu dambeeyay ay fawziya ku qorto Facebookeeda ayaa ay akhrinaya bal la arka. waxay tiri ila meerayso oo irida iyo timid caawa ogaada shardhaha. waxay qorto taariikhdii waxay tiri 27 bisha Febraayo sanadka 2020 khamiis caawa wax yar ka hor maqribka aniga waa yaabay qolkayga aan joogay irida waxaa loo tumay sidii askari American irid garaacaya intii aragtaa taqaana waryaa waaye aan iri laba mar jawaabta mid dhammaystiran ma helin. walaalle biyihii caafiga baanu doonaynaa soo gabadhii dash macnaha war baa sii socday ka badda intaas buu ku ekaa waraan dhammaystir lahayn. codka markaan intaas ka maqlay
hoos irida oo laba xubin ku dhawaad ka kacsan albaabka ayaa fiiriyay macnaha waxay ka wadaa laba ayaa albaabka iyo meesha dhulka ah oo albaabka ku yaal ayaa wuxuu dhexeeyay ninkii laba dhibic macnaha ninkii baa wuxuu yiri walaale biyaha caafiga ah hadana shib weega aamus aniga macnaha laba dhibcood waxaan iri bay ka wadaa aniga dukaan ima furne iridayda ka leexo albaabkan sidii darbi la jabinayo aad u garaacaysan iga jooji ninkii baa wuxuu yiri bay leedahay walaale waxa weeye irida fur waan kula hadlaynaa halkaas waxa ka muuqda ragga gabadha la hadlaa inay halka badnaayeen anigii 2 daqiiqo hadaas anigii baa waxaan iri bay ku leedahay 2 daqiiqo hadaad sii taagnaataan waan idin jeedaaye baqtigiina baa la qaadaya ninkii iyo 2 nin oo kale shib hadana buk macnaha albaabkiisii garaaceen intaas markay marayso ayay tiri waan fakaray waxaan go'aansaday in nafteyda aan difaaco aniga waxaan ku qasbanaa waan u qalab qaatay wixii aan macnaha aan ku qasbanaa markaa waan sameeyay ka wada oo waxaad qalabka isku difaaci lahaa waan qalab qaatay wala ma qashiye ma garanay qalabka wixii ka wado ninkii iyo nimankii telefoon bay ku hadlaayeen oo dad la socod siinayeen waxa next la suubin lahaa waxa macnaha xilliga markaa xiga la sameyn lahaa inaan idin ogeysiyo baan u dan leeyahay markaan dadweynaha bay la hadlaysaa inaan idin ogeysiyo baan u dan leeyahay nafteydana hadii la iigu yimaado waa difaacana ilaa aan awoodi waayo magacaygu waa iman cado waana la socodsiiyay dadka in ay ogaadaan aan u baahnaa in la is cabsiyo oo la is beeqsado waa intimidation waa kelmad af Ingiriisi oo laga wada baqdin galin waa violation of human rights waa ku xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha ah I will defend myself oo ka wado nafteyda waan difaacaya oo Ingiriisi no joke kaftan ma aha waxay hashtag ku qabatay freedom of expression hadana another hashtag intimidation and another hashtag VAW oo aan hadaga aad u fahamsanayn wixii ay ka waday 20 qofood ayaa comment ka bixisay 30 qofoodna dadka ayay la wadaagtay 50 qofoodna waxay ka bixiyeen dareen celis sida like ooyin iyo wow intaas wixii ka horeeyay oo ka sii horeeyay boostidaas wixii ka soo horeeyay Fawziya waxay ka hadlaysay arrimaha siyaasadda ee hadda taagan ayay ka hadlaysay badana waxaan rabaa marka halka inaan baaq ka jeediyo dhinacyada ay qosayso oo dhan horta qof markuu ka maqan yahay waxa loo baahan yahay inaad isdajiso sidoo kale waxa loo baahan yahay in aadan emotional noqon because da emotional noqoto sida aad rabtay wax ma soo gudbi kartid saaka saraakiil dawladda ka tirsan waa ila soo xiriireen anigana qaaraan la xiriiray dad xildhibaana ila soo xiriiray anigana qaaraan la xiriiray maxay ato safaaradda Mareykanka waa ila soo xiriirtay oo iyada ila soo xiriirtay waxay xoog waasiyay hay-adaha Amnesty iyo Human Rights Watch waa la xiriiray wixii aan kari karay aan wadaaya mana nasanayo runtii ilaa walaashay laga helo nolol iyo geeri uma saadinayo in geerideeda la helo laakiin mar walba wanaag baan Ilaahay ka rajaynaya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro dhinacyo fara badan oo ugu horumarinayo dawladda Soomaaliya Ilaahay baan nalahay dawladda Soomaaliya ana horta mucaarad ku manihi laakiin waxaan jecelahay in dawladnimadu waarto maxay ahayd toonase sharcigana aan la khilaafin oo exactly aan wax dawladu eg helno oo aan la mooryaanayn inaan jecelahay aniga tayda dawladda Soomaaliya anigoo aaminaha toos idinka idin la hadlaayo baqba idin daraayo barkay waxa ii sheegaya aniga naftayda markaan kala jaro dhinac wuxuu ii sheegaya inaan idin aamino sababtu waxa ay tahay waxa tiin dawladii wadanka hadda ka jirto qasab ma aha inay wada farxad geliyaan dhaqdhaqaaqeedina qasabna ma aha inaan ka wada murugooda dhaqdhaqaaqeedina sidaas la ajligeed waxaan idinku ixtiraamayaa inaad tihiin dawladii xukunka haysay maadaama ay taas aad tihiin waxaan idinka filayaa in gabadhaas naga maqan aad meel ku sheegi doontaan haddii sida tuhunada qaar ay yihiin ay idinka xaggiina ku maqan tahay waxaan idin xusuusinayaa
sharciyada caalamka oo dhan sharciga ugu daran ama ugu dheer oo qof lahayn karo waa 48 saacadood ay qof u xirnaa kartaa dowlad sharcigaas waa sharciyada dambiyada caadiga ah marka qofka lagu haysto waxaa jira sharci la yiraahdo terrorism law ama sharciga argagixisada kaasna qofka adduunka oo dhan ilaa iyo Mareykan hadii la soo yimaado waxa lahayn karaa 72 saacadood ayaa qofku xabsi ku jiri karaa intaas wixii ka dambeeya qofka ama waa inaad sii dayso ama waa inaad dambigaad ku hesho ku judge garayso oo aad ka xayso oo maxkamadda ku geyso ku hel ama ku waa oo maxkamaddu markaa go'aan ka gaadho labadaasba hadda ma haysano gabadhana 12 maalmood ay sii maqan tahay qaar qoyskeeda kamid ah waa ogaayeen in 12 maalmood sii maqan tahay because qofka aniga isoo wacay qof kale oo qoyskeeda kamid ah u sheegay inay gabadha maqan tahay anna ma ogeyn asaga aniga ii sheegay aniga markuu ii sheegay ani hadalaa bilaabay sababtu waxay tahay marka dhibaato dhacdo qof walba mas'uuliyada gooni u saaran maaha inaad tira hebel baa qaban doona iyo hebel baa saan yeeri doona maaha inaad tira fawzi waa ila dhalatay iska daayo qof kasta oo dulmana oo aan ogaado waa u hadlaaya aniga okay hadii marka gabadhii idinku maqan tahay idinka xageena jirto 12 maalmood ee af maahe waa in aad maxkamad hor keentaan dacwana ku qaadaan haddaad ku heshaan sharciga marisaan haddaad ku weydaan aad sidaysaan laakiin wixii inta ka dhaxeeya ma aha dhaqan dawladeed waa untuhun waxiigu ee ma aha wax cad oo idinku haaya ma jiro oo saraakiishiina ma wacdeen aniga hadii aan idinku hubo inay gabadha xageena jirto shabaab waa awood jirtaa tihiin oo wadanka ka jirta jacayl gaar aniga idin ma qabo taageerana idin ma ihi sabab idin kugu noqdana ma leh umalayn maayo inaad gabadhaas walaasheeya ee idinka wax idinka halaysay uma malaynayo odaygeeda sanka ayaan rabaa inaan asagana la hadlo oo halkan kala hadlo sababtu waxa ay tahay telefoonkiisa aniga waa iga qaban waaye hadama uu telefoonkiisa iga qaban waaye markii hore oo aan dhowr jeer wacana oo u ekay wax telefoonka uu dansan yahay saaka markii telefoonkii la shidana uu iska dhacayo leega qabanay kii gabadhana aan leega qabanay waxaan ku qasbanahay marka isagoo aniga xigta ila ah oo macnaha xidid ila ah oo gabadh naga qaba inaan social media u mariyo hadalkayga because hadalkaygan social media waa ka weyn yahay hadalkaygan waxa uu dhigmaa war saxaafadeed odageeda waxaan leeyahay sanka ma huba magacaaga kale bad waxa umaleyn anuu Cabduqaadir yahay hadda ka hor walaashay hal mar ay ka bartay hal mar aan kula hadlay marka hadduu Cabduqaadir sanka yahay iyo haddaan qaldaba waxaan hubaa naanaystaada sanka inay tahay sanka hadalla fara badan oo iskhilaafsan ayaa dhinacaaga ka soo baxaya dadkii saraakiisha oo kula xiriiray qaar waxaad leedahay gabadhii xamar ay jirta ana Baydhabo jooga qaar waxaad leedahay gabadhii Nairobi ay jirta ana Baydhabo jooga qaar waxaad leedahay gabadhii Baydhabo jirta waan isla joognaa ana kula hadalsi doono hadalladaadaas cabsi uu ka keentaya iyo wax kale ka keenayaaba anagu waxaanu nahay dad walwalsan oo gabadhii ka maqan tahay mana nasanayno ilaa aan gabadheena helno nolol iyo geeri waxa walaalo macaane ka codsanaya marka hadalkaagu inuu dhinac isugu duunaado oo aad kala cadayso waxaad haddaad haysataa jaaniska waa gabadha qof cid walba raadanayso haddaad jaaniska haysataa fadlan waxaan nahay xidid ila soo xidid waan dareensanahay xaaladaha amniga iyo cabsida Soomaaliya ka jiri kara ilaa iyo hadda waxaan kugu tuunsanahay adiga ma jiraan laakiin hadallada kala duwan ma wanaagsan qoyskayga intiisa kale waxaan leeyahay ayagana reer weheliya cadow qof alla iyo qofkii gabadhaas walaasheena wax ka og idinkuna hadda jaaniska haysataan ina sheegtaan maxaa yeelay wax kasta oo jiro oo aad ogtihiin ma aha inaad idinka ka dambaysiin laakiin wax kasta oo jiro aad ogtihiin oo la aamustiin haddii la soo ogaado inaad ogeydeen oo la aamustaan dambiga wax ka yeelanaysaan ugu yaraan moral ahaan taasna wax wanaagsan ma isbeta marka hadda jaaniska haysataan ina hadda hadashaan waxaan rabaa inaan baaqo jeediyo xildhibaanada Soomaali goys inta meel fariisato ee 4.5 ku heshiisay wuxuu rabaa hooga soo baxay meelay inta fariisteen ay qayb qabiil wax kasta ku qaybsadeen sabab afka looga dhowrto marka qofka maqan yahay ma jirto marka madaxweynaha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil ra'iisul wasaaraha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil dawladda oo madaxweynuhu sareeyo ra'iisul wasaarahana kursi hawiye oo ku fadhiya oo annagana qoys hawiye aan nahay waxaan annaga nagu matalo dawladda iyo xildhibaanada hawiye iyo kuwa mudulood oo jufada hoose oo aan ka dhalanay oo ayaantan muduloodkii la waday waa de qabiil weyn
dadku si aad uma fahamsana. I don't care aniga for the political winning. Wixii political winning ah aniga shaqo kuma lihi. Shaqo kuma lihi. qofkii ka raadinaya politically ayaa maxay ahaatoonay ayaa sidan ah aniga I'm not politician. I'm a normal person. I am a mom. I am professional journalist and I don't care political and I don't have even political motivation malih. Saas la ajligeed waxaan rabaa inaan idin sheego xildhibaanadana matala ra'iisul wasaare Khayre oo dawladda nagu matala madaxweyne Farmaajo oo wadanka madaxweyne ka ah dhammaan laamaha amniga oo dhan iyo madaxdooda intii maanta ila hadasho ila xiriirto intaan ila xiriirno iyo soo socotaan waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan u baahanahay caawinaadiina xoog idinku ma lehin laakiin xaqa idinku leenahay you know why xaqa idinku leenahay waxa waay dawladeenniyatiin gabadhana caasimadda aad degantihiin magaalada Muqdisho ayaa lagu waayay qofkii raba gabadha ha ka haysto waa ogahay dambi marka uu dhaco dad kore halkaad ka fiiro leh horta kuwa hoose ayaa booliiska iyo laamaha dambe baarista kuwa hoose horta fiiriyaan dadka qofka maqan dadka dad u xiga ala fiiriyaan adduunka dhan waa tiiri lagu shaqeeyo waa أنا ما قرنا يفوز يعد قاعدة يعد كحيسة ما قرنا ما نعرف إنه كنت باب مني هي دك قلبي هذا قفش كسارة أو إحنا هبينكو هطلع لكن وحقبها إنها يفوز وبد قبته ساس لا أجل روح باقو دراية دولة الصومالية لامها أمنجة مدحوينها رئيس الوزراء وأنجا هدانا بيش هوية إنما تله ما هو وح لقى حشودة معه دولتنا أنت فريسة قبيل وحكو قبست ما هينا أفكا كدود أنا قبراي مقن قفرن أو نولا أنا مقن وحقبها إيه حل بانada baarlamaanka nagu matala ee hawiye iyo kuwa kale oo Soomaali way iyo maxay ahaatoonay odayaasha dhaqanka ugaasow imaamo malaaqo boqoro whatever magaciina oo yahay waxaan rabnaa Fawziya Faarax Weheliya Cadow ina meel ku ogaataan aniga oo walaasheeda oo Aamina Muuse Weheliya Cadow ah oo ka weyn ayaa idin baaqaas si toos ah idinka codsanayo mana idin soo meeray si toos ah ayaa idin la hadlaaya ugu dambeyntii hadalkaygan yaa la dhayalsanin sababtu waxay tahay waxaan ahay qof wax ka maqan yihiin waxaana doonayaa gabadheena in helno magaalada Muqdisho gabadheena lagu waayay waa in la helaa cidii kala hadasha iyo cidii kolba meel waxaysa haday waxa soo baxay gabadhii waa la helay qofan aniga ila hadleen ama aan muuqeeda arag ama dadkii aan u dirsaday ee raadinay aanay raqdeeda iyo ruuxeeda aanay garanayn anigu ma aamini karo hadalku tirakuteena mana ihi qof aaminta hadalada la meeraysto mii Fawziya haday noosha waa inaan la hadasho Fawziya haday bad qabto waa inaan video ka aragno ugu yaraan kuweena meesha jooga laanaga dad laan ma nihine qaraabadeena dadkeena dhan meesha joogana waa inay face to face Fawziya u arkaan laakiin waa la xagga ka baxda inaan hebelaba joogta ma meelaha kale laga soo fiir si idea laga soo fiir ma kasta laga soo fiir meelaha dadku wax ku xirato dhabay laga soo fiir hadda guriyaal la isku xirtaa waa ogahay aniga I know guriyaal la isku xirtaa qofkii guri caadi iska jooga oo adeeganaya oo waxayna aaba xiranba qaabkaas ayaa hadda ka socda magaaladeedii Muqdisho qaabkaas hadda ka socda aweerana ku ah 20 sano Yurub aan joogo haddana because news aan ka shaqeeyaa I am well informed waana ogahay qof kasta iyo qofkii arintan warka haya wala shacabka caadiga ah wala dadka taageerayaashayda oo maanta dhageysanay walaalaha faraha badan leh 1900 live ah deer oo idaawanaya oo dhan waxaan si bini aadanimo leh islaamnimo leh oo Soomaalinimo leh idin kaga codsanaya qofkii gabadhaas axwaasheeda hayso inay ila soo xiriirto telefoonkeyga waa eber 44 7 eber 151 laba 3 ama Facebook-ga aad soo xiriiri kartiin lama daminayo telefoonkeyga 24 hours waa daaranya marka laano fursada ka faa'iideysana waxa u mahad celinaya dhammaan saraakiishii amniga kuwii dawladda ku jiray kuwii gobolka Banaadir dhammaan dadkii saaka isoo wacay iyo kuwii aan aniga wacda ee qaabila xildhibaanadii baarlamaanka nagu matalay oo qaarkood ay isoo waceen kulligood waa maxay ahaatoonay waan ka mahad celinaya thank you very much hasa ahaatee Fawziya wali waa naga maqan tahay waxaan u baahanahay in aan helno
warkan ugu dambeyn warkan waa qaadan kartaa warbaahintu noocay doonta ha ahaate waa u fasaxan tahay copyright kuma xiro waana faafin kartaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu